Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada muuqaal cusub. 11 faa'iido uu leeyahay malabka. Maanta waxaan ka hadlaynaa malabka, faa'iidooyinka uu leeyahay. Faa'iidada koobaad, malabka waxaa ku jiro nacfi ama nafaqo jirka muhiim u ah, weliba waxaad ka helaysaa vitamins. Faa'iidada labaad, malabka wuxuu u fiican yahay wadnaha, wuxuuse ka hortagaa dhibaatooyinka wadnaha soo weeraro. Faa'iidada saddexaad, malabka wuxuu joojiyaa ama hoos u dhigaa qofka qaba dhiigkarka. Waa hubaal haddaad badsato malabka inaad wax badan caafimaad ka dareemaysid. Faa'iidada afaraad, malabka waxay hoos u dhigtaa xiirta qofka iyo miisaanka qofka saaran. Faa'iidada shanaad, malabka waxay caafimaad siisaa wadnaha weliba si wanaagsan. Faa'iidada lixaad, malabka waxay bogsiisaa nabarka qofka ama dhaawaca. Sidoo kale waxay waxtar u leedahay markii uu qofka gubto, waxay qallajisaa meesha gubatay. Faa'iidada toddobaad, malabku wuxuu waxtar u leeyahay qufaca iyo hargabka uu ilmaha ku dhaco. Faa'iidada sideedaad, malabka waa sokor dabiici ah, waana macaanka adduunka ugu fiican inta macaan ee la isticmaalo. Faa'iidada sagaalaad, malabka wuxuu qofka siiyaa awood, taasoo xoojinaysa jirka bini'aadamka. Markasteetana waana muhiim in aad isticmaasho malabka, waayo wuxuu xoojiyaa jirkaaga, wuxuuna dhisaa murqaha jirka. Faa'iidada tobanaad, malabka waxay ilaalisaa jeermiska soo weeraro jirka, waxayna ka hortagtaa fayraska. Faa'iidada 11aad, malabka waxay furfurtaa maskaxda, taasoo kaa caawinayso fahanka qofka uu fahmayo wax kasta uu qabanayo. Halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkayna. Wabillaahi towfiiq. Is aragti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.